السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan doonayaa inaan tuso qaabka loo xareeyo lottery-ga family ahaan qaabka u xareysan lahayd ayaan idin tusayaa. waxaa loo baahan yahay markaad single-ka tahay xogta keliga waa lagaa rabaa inaad buuxiso xog adiga kugu saabsan, laakiin marka uu yahay family waxaa la rabaa xaaskaaga, carruurtaada, dhammaantood magacyadooda, meelaha ku dhasheen, sawirradooda lagaa rabaa. baasaboor haddaad u haysatid kaaguma ku xareyn kartaa, laakiin marka kuu soo baxo hadhow iyaga oo laydin doorto ayaad baasaboor u samayn doontaa. marka insha allah intaas ayaan tusaya la socda. marka hore page-kan aad imanaysaa. page badan oo fake jira, inta badan waa la iska ilaaliyaa page fake ah. kabacdi halkii markaad timaadid xogtaadii baa qoraysaa, magacaagii, magaca aabaha, magaca awoowaha. talaan hadda waxaan iska gelgelinaynaa qof magacun baan iska geenaynaa. talaan ninka waxaa la yidhahdaa Axmed Faarax Muuse. marka xogtii oo dhan markaad soo gelgelisid, bishii aad soo gelisid, maalintii iyo sanadkii qofkaasi dhashay, magaalada ku dhashay, dalka, baasaboorka magaca kugu qoran ayaad ku buuxsanaysaa meesha. marka magaca xagga sare aad gelinaysid iyo magacana waa islahaadaan. kabacdi sawirka soo dooranaysaa. hadda waa meesha qofkaasi joogo. kan waad iska dhaafi kartaa, ama dowladda Soomaaliya leedahay welfiga Soomaaliya xasuusatid aad gelinaysaa. email sax ah halka gashanaysaa. talaan email sax ah gelinaysaa meesha oo aadan ilaawin hadhow ka maalin si lagala soo xiriiro. marka hore single baad dooran jirtay, markaa single aa xiriirsanaysa, laakiin hadda markaad xaaskaaga aanay joogin waa kala laba option weeye. haddii xaaskaaga ay joogto US ay joogto talaan oo xagga ku nooshahay tanaa dooranaysa, laakiin haddii aanay US joogin xaggana waan ku qoraysa, optionka labaad baad dooranaysa. inta carruur haysataa halkaa gelinaysaa. kabacdi page-kan markaad timaadid xogtii xaaskaaga ku qoraysaa, sidoo kale sawirkeedii baa lagaa rabaa, ilmaha iyo xogtiisii iyo sawiradiisii sidaas oo kale baa lagaa rabaa. marka hadda xantan waxaan gelin karaa Axmed, first name, middle name, last name, waqtiga dhalatay, magaalada ku dhalatay intaan ka soo qaad, kabacdi sawirkeeda soo dooranaysa. sawirkeedii haddaan aanu sawir kale aan ahayn, marka sawirkaas aanu ku buuxbuuxinaya. sawirka waa aragtaa maaha sawirka loogu talagalay, laakiin size-kiisii baan ka dhigay kii loogu talagalay lottery-ga. marka waxaad samaynaysaa aduu sawirkeeda saxda ah gelinaysa meesha. talaan ilmaha yar halkan, ilmaha yar baa gelinaysa halkan, maxamed oo kale, Axmed, waqti ku dhashay, magaalada ku dhashay, dalkii, sawirkiisii waa soo gelinaysaa. marka kabacdi haddii wax kaan khaldan yihiin continue
xogta bas ka hubinaysaa xogta markaa iska hubisay qaybta koowaad iyo qaybta labaad in yani xogtaada dhammaystiran tahay emailkaadan ilaawin qaybta labaad baa imanaysaa sawiradii oo kale receiver oo kale sawirkadu wax kaa khaldan yihiin ku noqonaysa kabacdi submit baa leedahay marka waa intaa pageka kan kabacdi xogta meel baa ku save garaysanaysaa waxaa lagaa rabaa xogta tan bisha shanaad marka la gaaro 7deeda insha Allah inaad gashatid xogtan warqadan waxay sanaysaa ama wax tigaysaa halkan aad tigaysaa pagekana tigaysaa halkaas laga eegto xogtaas meesha gelinaysa shanaad maalintaas wuxuu ku leeyahay ama waa lagu doortay ama laguma dooran marka labada option ba yani haddii lagu doorto okay weeye process xiga maraysaa next step waxyaalaha kale laga rabo foomka aad bixinaysid yaa interviewgaas aad bixinaysid yaa kaarka ka qaadanaysid saas uu soconaya haddii lagu soo qoro not selected oo aan laguma doorana yani next time baad tijaabin doontaa nasiibkaaga marka intaasaan kusoo koobayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh.